nool magaalada Jowhar ayaa baaq gurmada waxay u direen madaxda dawladda Soomaaliya. Hay'adda Zamzam ayaa deeq kuraasta naafada waxay u qaybisay 70 qof oo naafo ah. Ku nool magaalada Jowhar ayaa baaq gurmada waxay u direen madaxda dawladda Soomaaliya. In ka badan 100 qof oo naafo ayaa waxay isugu soo baxeen banaanka xarunta indhoolayaasha iyo naafada ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle. dadkan ayaa waxay ka cabanayeen gargaar la'aanta dhibaatada ka soo gaartay fatahaadii webiga Shabeelle ayax ku habsaday beerahooda iyo sidoo kale roobab bilihii la soo dhaafay saameyn weyn ku yeeshay gobolka intiisa kale. dadkan ayaa waxay sheegeen in daadad xoogan iyo biyo ay burburiyeen guryahoodii, beerahoodii iyo sidoo kale xoolihii ay dhaqan jireen kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsaneed. waxa ay sheegeen in 100 qof oo naafo ay u shaqo tagi jireen tacabka beeraha iyo sidoo kale dhaqashada xoolahooda xilligaana ay yihiin kuwa ceyr ah oo aanan haysan noloshooda waxay ku maareeyaan. dadka naafada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa xilligan waxay yihiin kuwa daala dhacaya dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ayax ku habsaday gobolka intiisa kale iyo sidoo kale roobab bilihii la soo dhaafay halka ka daayay. waxay cod dheer madaxda dawladda Soomaaliya uga codsadeen inay la soo gaaraan gurmad wax ku ool maadaama xilligan aysan haysan wax noloshooda ay ku maareeyaan ayna yihiin dad naafo ah kuwaas oo ah dadka ugu nugul marka ay dhibaato timaado bulshada Soomaaliyeed. madaxda dawladda Soomaaliya ayayna ka rajeynayaan in gacan wax ku ool ay wax ugu qabato sidoo kale in naxariis leh ay ku soo eegaan madaxda dawladda Soomaaliya dadka dhibaatada ay ku haysato gobolka Shabeellaha Dhexe. dadka naafada Soomaaliyeed ayaa waxay yihiin dadka ugu nugul bulshada Soomaaliyeed dhibaatada dalka ka jirta waxaana muddadii 30 sano ee dalka uu ku jiro marxaladihii dagaalada ay ahaayeen kuwa dhibaato xoog leh la kulmi jiray balse xilligan ayaa rajadoodu waxay tahay mid aad u soo korortay marka la eego dawladihii dalka soo maray ee ku meel gaarka iyo dawladaha caadiga iskugu jiray. adduunweynaha iyo hay'adaha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuuna garab qabtaan. waa u baahanaa waxbarashana ma haysano gaajaana dhamaysay rafaadaan ku jirnaa guri islaameed gidaarkooda isku masawirnay. sawirkan waad u jeedin sida uu yaal waad u jeedin dadku sida uu yaal waa u jeedin aniga waxaan haafayeenkooda gurigaygan ka jiifa waaye waxaan uga jiifa waaye war afayeenkii atahano hadal waxaan wax ka rabnaa dawladda oo madaxweynaha ka yahay Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo adimankeeda iyo ku-xigeenada iyo ra'iisul wasaaraheeda iyo culumadeeda iyo wax walba oo dhan marka ugu horeyda mas'uuliyadda koobaad ayaga leh. hadday ka soo dhaadhacdo waxaa iska leh mas'uuliyadda labaad Hirshabelle. gargaarka qaranka Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diiri waxaan leenahay halkan waa deegaan doorashadaadii dadkan maanta meeshan jooga dayacan ee duruufta ka muuqata waa dadkaaga. waxaan rabnaa inaad maaragtay qayla dhaanta dadkan qaado waxaan rabnaa dadkan inaad u gurmato insha Allah waxaan ogahay inaad gobolkan rajo ka leedahay dibna aad uga rabto doorasho aad uga rabto ilaahay idinkiisa ilaahay ha ku geergeliyaan ku leenahay. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar. hay'adda Zamzam ayaa deeq kuraasta naafada waxay u qaybisay 70 qof oo naafo ah. naafada xarunta Sanca Center ee magaalada Muqdisho ayaa loo qaybiyay kuraasta dadka naafada ay ku socdaan. deeqdan ayaa waxa bixiyay hay'adaha kala Zamzam Foundation iyo sidoo kale hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta. dadka naafada ee gawaaridan loo qaybiyay ayaa si wacan waxay ugu duceeyeen dadka deeqda bixiyay. ma ahan markii ugu horeysay oo dadka naafada ee ka tirsan xarunta Sanca Center la gaarsiiyo deeqo kale waxaana jira deeqo noocan oo kala oo shakhsiyaad Soomaaliyeed ay gacan ka geysteen lana gaarsiiyay naafada ku jirta xarunta Sanca Center ee magaalada Muqdisho. dadka naafada ayaana aad u soo dhaweeyay talaabadan ay qaadeen hay'adaha kala ah Zamzam Foundation iyo sidoo kale hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta taas oo ahayd kuraasta dadka naafada ay ku socdaan in loo qaybiyay. dadka naafada ee ku jira xarunta Sanca Center ee Muqdisho ayaa aad u soo dhaweeyay talaabadan lagu gaarsiiyay deeqda intaas leeg ayna ka qayb qaateen labada hay'adood ee Zamzam Foundation iyo sidoo kale Bisha Cas Imaaraadka Carabta. waxayna sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee wax bixin kara. dadka naafada Soomaaliyeed ee waxay yihiin kuwa u baahan xilligan in la garab istaago ahna dad baahiyo kala duwan qabo maadaama dalka ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo ah dadka ugu horeeya oo saameynta ugu weyn ay ku yeelato.